inkastoy gafadan tahay hadalkeedu godi yahay melu goysa daran yahay gubashana u badan yahay sale haddaad inta gabadh guursata gabadhii kala tagtaan ilaa ardaci kala magto waa kala tagtaan gabadhii inaad isku soo noqon doontaan ilaahayba og isla markii waxaad arkaysaa gabdho badan saas kaaga dayaacay kaal aad u sheeg waxay raadinayaan mar labaad iyo mar saddexaad ba walaashay Najmanashaad fanaanadiina weyn iyo sidoo kale odageeda Awaaladeyr aan la isku soo laabasho dambo xiisa leh assalaamu calaykum saaxiib halka diga daawanaysaan waa channelka Shaacir Sheekay laakiin Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada ardi kuga hay inaan ku daacadaha yaagtaadana biday daryeel inaan ka doortay oo dartaa uunkaba u nacay haddaana dareemi karin weewe sidoo kale barnaamijkii waxaad ku maqli doontaan showga King Jaamac oo mar badan oo ka dhashay kadib markii culimada Soomaaliland ay ka soo horjeesteen inkastoo ay dib u fasaxeen haddaba sababta showga King Jaamac loo joojiyay hadana dib loo fasaxay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa ka hor intaan barnaamijka u gudgelin fadlan subscribe saar channelkayga sidoo kale like dhac muuqaalkan si uu gaar saaxiibada وهاك ساحب انت انا ارنت شو كين جامع غودغلين waxaa idin hayaa muuqaal runtii farxadiisa wata oo aan dareemayo in qof kasto jecel in family Soomaaliyeed ama qoys Soomaaliyeed oo dib u dhismo oo ku farxayo ayaan idin hayaa laakiin muuqaalkaas intaan u gudgelin maskaxdiina dib u celi dren inaan ku daacadaha yaagtaadana biday daryeel inaan ka doortay oo dartaa uunkaba u nacay haddaana dareemi karin weewe وهيس قصة دبا حنبارسان oo leh xashka mabsi maskubaha ka soo bixi waa hees qodqoda oo aan qarin qorshihii lagu kala tagay cid qaraar ka gaartay heestani waa hees ka turjumaysa qisada jacaylkii burburay ee Najmanashaad iyo Awaaladeyr hadaba daawade maxaa kala socotaa qisada jacaylkaas فرنت هستن waxaa gudbinaya fanaanki weynaa Iskalaaji laakiin waa true story oo waxa ka dhaxalaya Awaaladeyr waa fanaan daayaro dadkiisu jecel yihiin laakiin aan saaxada fanka ku dhaxlahayn saameyn sidaa u badan maxaa yeelay waa howl cod macaan oo horumarka fankiisa ka hormariyay mid jacaylkiisii wabigu jeetay inaad hor cararin xaaskaaga markasta waxaan ka doorbidaa iyada daayar iyada imka waqti fiican haysa inaan kayga ka hormariyo keeda kaaga qalaysa qofka kulay saaxiibi gooniya waa odagayga inta heesan qaadayo isagoo anigu maba garanayo bad isaga wuxuu qaadi guudaayo way macaantay ayaanay macaan qaada Najmanashaad waxa lagu xantaa inay tahay boqorada quruxda fanka Soomaalida waxa ay ku dhalatay kuna soo barbaartay magaalada Nairobi ee dalka Kenya fankeedu waxa uu ka soo bilaabay magaalkacyo inkastoo Garowe ay muddo ku galgalatay haddana waxa ay dhowr jeer ka soo muuqatay masraxyada xamar ugu dambeyntiina waxa ay u soo hayaantay hoygii Vanga Hargeysa halkaas oo ay wax ku noqoto Soomaaliland iminkan ku sugan deganay Najma iyo Cawaale waxa ay muddo hayeen lamaanayaal lagu daydo kuwa oo si weyn loogu martiqaado meelaha lagu xuso jacaylada guuleystay laakiin nasiib daratan iyo markii Najmanashaad soo caan baxday waxa ciriiri jacayl iyo digasho intaba dareemay Awaaladeyr oo islaha mirihii aad muddo beereysay aad hadeer guran doonta waxa qalbigu siiyay qofka koowaad waa inaan kayga aabihii marka labaadna waa asxaabtayda najmo ma ii sharaxi kartaa waxaad ula jeedo inankayga aabihii saxaafow waa ku maqluuba su'aashaas ka gambiya Najmo oo dhowr jeer waraysiyo kala duwan bixisay ay ka soo fakatay ereyga ilmahayga aabahood taasoo ka dhigan inay iska ilowday halkii uu geedigu ka yimid dadka falanqeeya arrimaha jacaylka ayaana taa u fasirtay in magacu uu kunjeer ka muhiimsan yahay jacaylkii burbura
haddaba arrintan intaan waxba ka dhihin hal mid maydin weydiiyaa gabdhaha Soomaaliyeed bada daawanaysaan anu Soomaali guud baan la hadlayaa qola gaar la hadli maayo waxaan fahmi waay war idinka dad barnaamijka la aragteen kala maaqa waxaan fahmi waay gabdhuhu waxa ay ku jecel yihiin kula daarasho waa soo aragnay laakiin hadda waxaan la yaabana waxay tahay tusaale yar baan siinayaa haddii gabar iyo wiil ay kala tagaan isla markii wiilkii waxa arkaysaa gabar la sawirna isla markii gabar jacayl la sameynayso romantic la sameynayso arkaysaa marka anigu waxaan is weydiiyay maxay gabdhaha Soomaaliyeed ku jecel yihiin ragga single father-ka ah walaa waxay ku jecel yihiin fahmay ma gabadhii walaashooda ahayd ee qofkaas ay kala tageen miyay ku xumaynayaan oo iyaga ayaa macnaha is xumaynaya ma si kale ka tahay sale haddaad inta gabadh guursata gabadhii kala tagtaan ilaa xarfaaci kara magto waa kala tagteen gabadhii inaad isku soo noqon doontaan ilaahayba og isla markii waxaad arkaysaa gabdho badan saas kaaga daba yaacay kaal adu sheeg waxay raadinayaan waxyaaba aan fahmi waayay lama tahay marka adigu inuu kusii fogaad ma rabo barnaamijkan ama familkan dib u dhismaya runtii anigu aad baan macnaha ugu farxay muuqaal ahaan hadii aaleed sidoo kale arrintan marka hore waxaan maleynayaa wax iska dadku iska wadaan laakiin waxaan xaqiiqsaday markii uu soo dhigay abwaan Jilani oo taqaaniin filankii weyna nolosha cusub soo dhaway jacaylka qabiyoobay oo ninkii sameeyay inkaga sheekay maayo Soomaaliland laga wada garanayo ba qoraal oo bartiis Facebook soo dhigay baa arkay oo ugu hambaleynayo dadkan dib nolosha ugu midoobay oo ah dad famil hore u ahaa laakiin calafka iyo waqtigu kala geeyay hadeerna dib u soo celay baan arkay kadibna aad baan ugu farxay kadibna waxaan arkay dad oo hambaleynaya waxaan halkan hambalyo uga diray aan soo koobi karayn mar labaad iyo mar saddexaadba walaashii Nijminashaad fanaanadiina weyn iyo sidoo kale odageeda Awaaladeyr aan la isku soo laabasho dambo xiisa leh markana Kinjama showgeedii ka dhacay magaalada Hargeysa ay u soo duushay ee diyaaradda u soo raacday saacadihii ugu dambeeyay waxa ku yimid halis wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa waxay ka soo saareen warqad dheer kadibna waxay sheegeen in showga Kinjama uu dhici doon hal saac kadib muddo hal saac kadib ah dadka arrin isku dadway ku dagay laakiin muddo hal saac kadib ah ay sidoo kale waxay soo saareen saxaafadeed kale oo ay ku sheegeen in Kinjama ay buuxiyo shuruudihii looga baahnaa isla markaana ay showgeedii dib ugu fasaxeen marka showga Kinjama ka qayb galan ku dhimaayana ka qayb galan ku dhimaay laakiin hadii aad tigidhki inta goosatay aad lacagtaada ka murugsaneed showga Kinjama Hargeysa uu ka dhacaya marka arrintaasna waxa lagu sababeeyay oo showga Kinjama markii loo joojiyay loo fasax waxa la yiri shuruudihii looga baahnaa bay buuxisay anigu marka shuruudaha inay xijaab xirataa ma inaysan boodboodina ma fahmi karo laakiin calaaya xaasil gabadhaas showgeedii waa loo fasaxay aad uma saddex muuqaalka waa shaac shaklaysta iyo